حمرنا حدان ريا وضلنا وحنو يا اللي مجرو ما تبو حبال يدين سدا بشارة يدين سدا بشارة يدين سدا وحويا لقهيا دكتة ده والله نسيا ريا أوضل نبض يسميين ووح الصومالي عن لير نحي وسيرة الوحساب أنو حزبنا كمجرو كل مية مي والدني مي يقعدنا مي حمر وحبك قاري منه maanta kulankan anaa idin qabtay 14 sano ka hor baa isku keen dambeysaan u malaynayaa inaan meelo fagaara ama shirara isku nimaadno waqtiga xilkaan ka tagay waxaa bariyaha daba soo baxday dibadaha media wax la yiraahdo oo duufaano badan iyo dabaylo badan oo dadka weerariyay ay ka socdaan oo dadka ma aragtaanay khalkhal galiyay oo marmar xaaladda lagu jiro ka dhigaya xaaladan sugnayn bal waxaan jecelahay inaan dib u yar raacno 19 intii joogtay boorama 19 xaaladan ku sugnay boorama maxay ahayd halkay joogtay 19 sano ee Soomaaliya ka tirsanayd maxay awdal ka qabsoomay hal secretary oo Sheekh Ali Jawhara oo iska wax xusab lagu dhisay maantana magaalo kasti secretary baa ka dhisay iyo dugsi dhaxaa ka dhisay hadiya jeer dad baa dibadaha ka soo hadlay la kay noo dhashay oo yiraahda xabar baan tagaynaa xamar bay wax yaalaan waxba yaalaan xamar iyakii baa si kala socda iyakii baa nabad oo la magaaladoodii banaadir bay nabad ka dhigi kara waayeen xamarna haddaan ree awdalnahay wax inoo yaali ma jiro halkan uu ilaahayna dhigay dadka aan ku wada noolahay bari iyo galbeed intay naga xigta kuwaasaan isku mustaqbalnahay maalin baan adduunka ka wada tagaynaa maalin boqolo gaar oo tagaysa ma jirto waxa laga maarmaan horta inaan garanno inaan wada noolaano boorama tuulo yar bay ahayd maanta waa caasimad maxay ku timid nabadda weliba ree awdal ay sameeyeen ee Soomaaliland inteeda kalena ay u sameeyeen halka dawladda aan ka dhisnay ama madaxweyne ka noqonnay ama ku xigeen baan ka nahay xamarna waxaan ka noqonnaa hadii jeer wasiir caata ah waana maclaalahay markaan isbarbar dhigno waxa aan haysano inaan ilaashano way waxay naga dhiman xafiiska tagayna waa ka dacwoonayna waa raadinayna maanta waxbaa lidin sida bishaara lidin sida bishaarada lidin sida waxa weeyaan lughaya dekedeeda waa la dhisayaa halkii milyan ugu horeeyay ee contribution kaala wata warqadeedii madaxweynuhu oo qoray asnada dawladda oo ka $1 milyan idinkuna muddo badan ayaad lacag uruurinayseen lacagtaad uruurinayseen wad keenaysaa wixii kalena waa raadinaynaa waana daba galaynaa taana ana idinka ballan qaaday waxaan idin leeyahay nabadda dad baa inoogu yeedhaya marmar baan dhegaystaa qaar media ka hadlaya oo dad inakoo dibadda jooga oo khudbadaynaya haddayna kama ahin dadka oo khudbadaynaya waa dad shisheeya oo aanay noqon innaka aanay noqon xaaladdeedaan noqon weliba qaarkood kuwa halkan waxbarasho u soo raadsada yihiin ayaa inoo khudbadeeyo yiraahdaa meesha burburiya sidii dad bilaa aqli inaan nahay oo kala anuu mid baan idin oran lahaa waalidiinta waxaan leeyahay haween iyo ragba inaad ubadkeena aan gaarsiino nabadda iyo waxaan ku noolahay iyo mustaqbalka halkaan ka soo safarnay iyo halkaan joogno boorama maanta maalin ay ka qurux badan tahay ma jirto horumarkaasina wuu sii soconayaa waxaan imika maqlayaa dahabna inaad hesheen bal dahabka sida loo maamulo qoladan aqoonyahankana waxaan leeyahay aqoonyahankeenu bal dadkan in waxyaabaha ay haystaan siday u horumarin lahaayeen atalooyin uga samaysan oo fikir la curiyo siday isku kaashan lahaayeen ay wax u qabsan lahaayeen dhulkeenu uu inoogu filan yahay
وحبذا بالو هاي دول كين وحي خيرات كيالا ميل كلا نوغا باهناي ماهن لكن وحلو باهناي نبط ريا أوضل نبط هاي سميين ووح الصومالي عن لير نحي تانا إنا نلاشنو يا واجب اللقاء إدنا إنا نقل لغاجسو ماهن أرنكين وإنو نقضا كبال نجي وكنا قالنا نبطا يهرو مركا ديغان كين يبدو كين dad kaan wada degan lahay bariya galbeed sidaan u wada noolaan lahayn inaan ka howlgalno oo aan isdhex galno oo isfahamno bini'aadamku markuu isdhex galo oo isfahmo wax badan buu kala faa'iidi karaa wax badan buu wada qabsan karaa dhaliiluhu way jiraan ree awdal dhaliil kama jiraan innaku weliba mid baan dheernaho gudaheena isma layno xaggaa walaaliheen waaba la islaayaa marka waxaan idin oran lahaa wariyaanan innaka ruuxnin ana waxbaynu ahayn cabdisalaan ilburaan haddeer arkaayey waxaan xasuustaa markii xabar lagu dhawaaqay xabar ee dibashiisintii jabuuti kadib maalin kanada lagu shiray oo 500 baa isku timid cajalada ka dhageystay wuxuu yidhi 500 baan maanta ku joogtaanay jaamacadda cabuud waa la furay ee contribution bixiya contribution kii $10 baa la isku qoray nimanka dibadda joogo nimanka jaamacadda $10 isku qoray ayay qaarkood rabaan inay dagaal galiyaan dadka nabadda ku leh waxa soo kale in la dhageysto ma caruurteena maanta caruurtoodayada iyo dumarku ma xukumaan laakiin hal looga digo waxyaabo fitnada oo aan danteena ahayn oo aanan sharafteena ahayn in caruurteena loo mariyo ma garanaysaa media oo caruurtu idinkoona ogeyn ay iska kacaan waxaan dib idin xasuusinayaa 2000 markay ahayd anoo madaxweyne ku-xigeen qolo Firidooniya la yiraahdo barigii maaragtaan tiri wadooyin baa sameynayna qolo gaala ahayd wadooyin bay sameynayeen waxay sameynayeen waxyaabo dhibaato ku ah wadankeena oo badda inay sunku shubaan iyo waxaas ahayd buugtii markaan soo qaaday qoladii jaamacaddan yidhi war bal idinku dadka u akhriya waa la akhriyey khatar inay ahayd markii la ogaaday sidii bay hawsha ku dhammaatay berigaasaan u sheegay ree odayadii iyo baarlamanka oo maalintaa way fadhiyeen guriga martida waa laga yaabaa odayo wakhtigaan nool inay maanta joogaan oo maalintaa fadhiyey waxaan ku yidhi warnimo yahow tashwiish yaroo soomaali oo dhanba ku jiraba oo qolan nacayb la yidhaahdo oo dhex soo socda caruurta ayaa markaa la ii sheegay waxaan idhi anugu waxaan rabaa maalmaha ka mid ah inaan dalkan qoladan aad leedihiin ma wada noolaanayno inaan madaxweyne u noqdo waa 2000 bay ahayd waana gaadhay oo ilaahay uu iga dhigay waxa weeyaan wax kastoo raadino ree wadal haddaan lahay Soomaaliland ka gaadhayna xaabaan waxba ka gaadhi mayno dadkeena ayaa lagu waxaanan macna lahayn lagu soo ftiran habaabin oo looga sheekay waxyaabaha dhiman ee Soomaaliland lagaga dhiman maalinba intii aan soo xalili karaynaan xalilayna midna waa kula dardaarmaya diiwaan gelin tama samaysaan maalin baa iman doonta la yiraahdo baarlamanka cid gobolba codka uu leeyahay waxa lagu siiyo haddaad isdiiwaan gelin weydaan oo tira yar oo boqolka ka yar aad isdiiwaan gelisaan intaa un baa laydinku siin ma caban kartaan waxaan idinkula dardaarmayaa dadkiina inaad ku waalisaan inay isdiiwaan geliyaan oo tirada ugu badan oo barito wax ku raadsan karto inay la soo baxaan waa hawlaha inoo yaala wuxuu leeyahay raadin lama xisaabna waa inaan ku darnaa maxay laga dhiman oo shaqo inaan qabsanaa waxyaabahaas aan adduunka kala hadlaya midda labaad waxaan idinkula talinayaa waa isma dhibaatayno laakiin taladiina mideeya waxaad ku midaysaan xisbiyada iyo waxa waad kala gali kartaan oo libba dabaciyad kala leedahay laakiin taasi danta guudeed leedihiin yeena idinka kala kaxay nibba ninku doonaya had doorto waa axsaab wasiiradana waa axsaab anu xisbina kuma jiro kulmiye meeyi wadani meeyi ucudna meeyi madaxweyne ummadda Soomaaliland dhex u abaanay
لكن إن أنت هذا وجود بيو أو نبضها مارتين كحوجيوي أنا مدحوينك وحجينا نبضي وحق السوسة بيه برعو رقابة ولا سكول لاي هل كان لنا نبض كل الدردام هو ماشي دي واجب بيوتها نبض يقول الشركة يو إسكاشي إلى تشغيستان فضتكم أي تشغيستان ورسيدة دولة شيء أخر مرينا الدنيا مرة ما بحسميش ما لي بوح بعلمنا لكن وحلمنا وحال هيسو نينونا هدومين وحال هيستا هيسو وحكام قلنا راتسو تلاذي دوتا وحال إلهي ذكبرية يقول لك إلهي لو بركيه تذكر إلهي لو بركيه وذكر إلهي لو بركيه أرسال إلهي لو بديو يا إلهي دي ويدينيا إذا كانوا وحال تكون تلنا مدلمو وذجر ضد تجود إلى دود هذا السهل شقالة يبقى وحالي أروح عليه وردكتن حلا بلابو بل كنت بيشك هاجي بالعوينة وكاو صوفر كوك السوي ما دنا ولا ويدين هدول سوي جوجل يتكلم ولا مين هذا عد كلا تبادل ولا ويدين دكت داسيلا وهنا النقطة مدبر ما كشة كين ليه دكت كشة غينه وكوضش غينه سيدا يهرق للحي هدول هاي العادة وحال إذن الله حي ذاتينا واحد هاي ستانة ورمرة مرنا بيان لود من وحنا الحين يانا نقول لك أو دبير كيسي كتيا أو عركة عركي يانا تلدي نقول للي يرد إننا وحبضن بريها الله وشيء بري باري ور عروتني وخرب إيسا مركان كريكها عروتها يا إيدين لا لا إيدين كان لا وحشاك حباك الله الله لا شيء كيست عروتنا وحنا كواليا وحفي عنه وشيء مركا وحويان xiriirka waxa kala muuqata aqoonyahankeena iyo odayadeena iyo dhalinyaradeena waa inay noqdaan dad isgaara oo wada sheekaysta oo isfahma oo isweydiiya war maxaan qabsanaa maxaa laga dhiman sidaan u qabsanaa maxaa dawladda laga xidhan maxaa innaka inagu xidhan wax badan in laga sheekaysto baa loo baahan yahay حتى دقيقين وباقي دول هي بريغا ميغينا ولا خليلان مغالada la way joogan innaka ninkii magaalo soo galay miyiga dib ugu noqdo war dadkii miyiguna xaqaas ku go'dooma inteena kale la magaalo joogna bantaal laftigeegu waa mid leeyahay hal soo nooliyaan lana waxaan ilaahay ka baryayaa oo ilaahay weydiisanaya inuu in la barwaaqeeyo إنك يجي تكلم ولا تقول له سومالي تلا واحد أو صوص على مجرو سومالي وحبك صوص على إنك هيدي كل شيء كأي وبين وحبك بس صوص على ولمن حاجاتي كريلا لنقول يسمى حاجاتي كل لوج سوء حاجات إذا بدأ إليه سكوتنا بقبيل بوهيستا يعني تتكوفانا إنك عابان الله تلوفانا مني القرية هذه بدأ تجوكر وحن لاحي حتى جيستان دكتور خيار دسين لاي حتى تركي عشيه تقال تركي وبانو نبض وهيستاي كنت ربيش كان هو وطنك كقيم كلا دسميس صدح لينو لما قدومية شغال يا حبر تقي هو قدومية يا قدومية يا ولي يعني واحد صدح لينو غيرك أو كبر ما يا قدومية أنجري oo dad kale oo shisheeya u tagaya waa dhibaatooyinka inaga soo baxay runaantii ilaa dad oo qooyahana inta badan Soomaalidu dhanba aqoonta inoo qirtay laakiin qualities noocaasina way naga soo baxeen qualities ka waxa leeyahay waa nibayaho Turkiina ka xishooda magaca sumcadda Turkiina xubaynina haddaad wax taraysaan dalka kaalaya wax ka dhisa oo kaalaya Turkiga uu idin baahan yahay دسمو إذا كباهي فتنة يقال على صيدك مبارك والسلام عليكم.